guddida waalidiinta dugsiga Laas Dacwo gudoomiyaha hay'adda wadaniga ah iyo Fenko maamulaha dugsiga macallimiinta dhamaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan aanu joognaa waa dugsigii hoose dhexe ee Laas Dacwo sanadkan ugu dambeeyay dayactir baaxad leh waxa lagu sameeyay dayactir baaxad leh dayactirkaas oo iska kaashadeen wasaaradda waxbarashada hay'adda UNICEF hay'adda wadaniga ah iyo Fenko iyo guddida dugsiga Laas Dacwo maanta dhismahan aynu joognaa 60kii ayaa la dhisay uu dul qaawanaa gidaarada kaliya taagnaa dayactirmaha dubudhas dhameystiran baa lagu sameeyay halka muhiimadaas halkaana waxaanu ku arki karnaa iskaashiga mashruuca waxa la fadhabar u ahayd community-ga bulshada la fadhabar u ahayd guddida hogaaminaysay baahidoodii wixii ka yimi baahidoodii ayuunbaa wax lagu la qabtay arrintaasna waxay ina tusaysaa muhiimadda ay leedahay iskaashiga iyo wada qabsigu aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dugsiga guddidiisa iyo maamulahaba ka dhex muuqdo iskuulada gobolka waa iskuul maamulkiisa iyo macallimiintiisa iyo guddiduba ay isku xidhan yihiin lafdhabar waxa uu hawsha isku xidhkeedana guddida dugsiga aad baan u bogaadinaya waana mahadnaqayaa waxa kale oo mahadnaqayaa hay'adda iyo Fenko oo mashruucan iyaduna la daadihinaysay oo implementationkiisa iyo dhamaystirkiisaba lahayd si fiican deeqdi la soo dhaxmariyay si fiican wuxuu qabatay oo si dhowna ula shaqeeyay wasaaradda waxbarashada runtii mashruucan wuxuu qayb ka ahaa dugsiyadii mashruucaadii loogu talagalay dadkii ay abaaruhu saameeyeen ayaa dayactirkan iyo dubudhiskan iyo waxaan ay qayb ka ahaayeen marka bulshada iyada baahida ay ka timaado ee la yiraahdo waxa saan idin haynaa maamusha waxna ku darsada qiimaha aynu maanta arkayno ay yeelanaysaa mashaariicda iskaashiga iyo wada tashigu muhiimadu leeyahay waa taa dhismahan maanta lacag badan baa ku baxday 60kii baa ugu dambeeyay dubudhis dhameystiran baa lagu sameeyay maantana iskuul labaad baa meesha nooga soo baxay waa 5 fasal oo maanta iskuulka horena waa 8 fasal ka horena dayactir dhameystiran ayaa lagu sameeyay kana dubudhis ayaa lagu sameeyay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa iyagana wasaaradda waxbarashada oo wasiirku u horeeyo wasiir ku-xigeenka agaasimaha guud uu noogu ah horumarka iyo dadaalka iyo isbedelada maanta aanu ka wadno gobolka intoodaani wax badani aan noo qabsoomeen bulshadana waxaan ugu baaqayaa reer Laas Dacwo in iskuulkooda ay hareeraha ka taagnaadaan macallimiinta 9 macallin hal macallin baa milaa mushahara wasaaradda waxbarashadu kaana way ku dadaalaysaa sidii loo mushaharayn lahaa laakiin waxaan u baahanahay xilligan tayada xilliga laga shaqeyn lahaa baynu gaadhnay waxa la doonayaa guddida waalidiinta macallimiinta maamulayaasha dhammaan in heegan loo galo isbedel waara oo dugsigana ku yimaada tacliintiisa horeba iskuulkuna hormuud buu ahaa markasta sanadada imtixaanaadka marka natiijada la soo saaro kaalmaha hore ka gala waxaanu doonaynaa iskuulku inaanu halka hoos uga dhicin kor uga sii socdo mooyaane iskuulka mustaqbalka waxaanu doonaynaa dadka waaweyn wax la baro in xirfadihii xataa lagu soo kordhiyo waayo deegaanku waa deegaan ballaaran waa degmadi oo magaalada madaxdii degmada waxaanu u baahanahay markaa in hariya habeenba wax la barto dadka waaweyn wax la baro dumarkana xirfadihii loo abaro mustaqbalka hadii idankeeda leeyahay waxaan ugu dambeyn u mahadnaqayaa mar labaad guddida Laas Dacwo oo halbowlo la fadhabarno hawsha dugsiga ka socota sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa hay'adda iyo Fenko oo implementation ka hawshan lahayd hay'adda UNICEF gudoomiyaha Fenko imkana la jooga halkan oo mahadnaqa aan siinaya hay'adda UNICEF oo lacag soo bixisay wasaaradda waxbarashada oo iyaduna hagitaanka iyo hogaaminta mashruucan lahayd ayaan iyadana u mahadnaqayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh